السلام عليكم أصحاب توادين سلامي كسو دوادا يوتيوب channel كيغا فاطمة فني قعنا فرن يا قلبي فرن يا وجي فرن انتبا كسو دوادا أصحابي هدا يقول عصبتهين محلها سبسكرايب إيدها هدا محلها هوري يوجوكتين محلها لايك إيسارة أصحابي موضوع آن رومانتي إن كهالله وموضوع محلها قوانكي كسو بحي باش جرير وينا oo go'aan oo maxallaha geesnimo leh oo maasha Allah ragnimo leh marka horta ma aan ku taageerayaa inay maxallaha go'aan rasmi ay ka soo saaraan laakiin bardu waxaan rabaa barnaamijkan caawa inaan aniga fikirkayga aan ka dhiibto insha Allah biidnillah go'aankay gaareen waxay tahay maxallaha marxuumkii la dilay oo sida foolxumada badan loo dilay Axmed Dawla ilaaha u naxariisto waan ka xunnahay wallahi wax aan ka xumaano waa saraaxa in maxallaha xitaa يعني جلاع ورني أرنتاس يعني أي ساميسي ما أهن جرير بس مركا يعني قف مسلم أو ديق له محلها أو بني آدم كحمانا قال مسلم بني آدم أنا أرنتاس كحمانا مركا محلها أصحابي go-aankii ka soo saaray waxa waaye dadkii maxallaha dilka geystay si degdeg in loo dilo oo tiirka la soo saaro hadii maxallaha oo arintaas maxallaha oo dadka si degdeg ah hadii tiirka loo soo saari waayo waxay go-aan ku gaareen meedkii inay banaanka u soo saaraan ee qabriga ka soo bixiyaan horta bismillaah shaydaanka iska naara maxallaha ay raali gelina insha Allah laga bixinayaa waxa rabtiin insha Allah way dhici doonaan marka waxa idin dhihi lahaa aniga horta maxallaha yimeed oo subxaanallah oo la asturay in la soo faaga ma ahan laakiin dawladda Soomaaliya go'aankaas u jeediyeen dawladda Soomaaliya ilaa hadda jawaab laga ma haayo ilaa hadda maxalla sidee falku u dhaceen wax baaritaan ku jira ee ku maqan tahay ilaa haddana maxalla jawaab rasmi ah laga ma haayo ayagana waxay go'aankaas u qaateen waxay tahay in dawladda Soomaaliya ay ka helaan jawaab rasmi ah ma garateen marka aniga fikirkayga raba inaan ka dhiibto waxay tahay wuxuu yahay fikirkayga maadaama maxallaha dadkaas aan noqotay maanta dad reer xidid ah sax way falxun way geesteen oo falxumo badan laakiin maanta gabadha ka guursateen oo reer xidid aan noqoteen marka waxaan dhihi lahaa arintaas wanaag ha lagu dhameeyo si yani maxallaha sheekadaas ay u soo afjarato laakiin maanta maxallaha hadii maanta dadka horta sax waa ilaahay wuxuu amray qofkii qof dilay in la dilo hadii maanta dadkaas la dilo gabadh adinkan ay gabar ka qabtiin waxa laga yaabaa bari hadana inay cidi soo laba kaclayaan ay hadana dadka idinka dilaan marka sheekada waxay noqonaysaa maxallaha ha socoto sidee loo soo afjari karaa sidee dawladda waxa u mareynaa inay ku maqan tahay xal rasmi ah oo labada dhinacba anfacayo maanta hadii maxallaha adinka aad isdajisaan oo maadaama dadka reer xidid aan noqoteen in maxallaha aad diidin iska qaadataan oo maxallaha khalaas wanaag arintii ayagan hadda abaal ay ku qabaan dii inay dhiibaan abaal ay ku qabaan ilaahu $100,000 ah 100,000 xitaa dalbada lacag shilin Soomaali iyo waxaas ku saqjaamina lacag waaweyn dalbada inay dhiibaan abaal ay ku qabaan lacagtu muhiim ma ahan laakiin dadkii hadda reer xidid aan noqoteen oo dad gabar ka qabtaan waaye waxaan yani xalka dhanka fiican yani ha laga fiiriyaan dhihi lahaa marka insha Allah sheekadan waxaan ku soo afjarayaa hadii go'aankiina aad ku adkaysateen go'aankiina in lidin dilamo ogiye qalbigiina si kale uu ku irtaaxeenin waxaad sameynaysiin gabadhan waa ina reerkeeda aad u celisaan ma garateen si arintaas ay meesha ugu afjaranto jacayl horta ma jiraba jacayl maxalla wiil adeerkiisa la gubay meeshaas jacayl ma yaalo oo maanta ayadana hooyadeed hadii la dilo waxaan ku dhahay jacaylkaas jacayl ka kacay waaye kulli aan ra'yi ahaanteyda gabadhaas ina iska celisaan maxallaha ilaano maxallaha waxyaalo badan wax yani idin kaga imaanaya ka badan ma garateen gabadhaas reerkeed inaad celisaan adinkan go'aankiina aad ku adkaysataan hadii kale tana iska tanaasushaan oo diidiina aad iska qaadataan oo reerkina khalaas reer ehla noqoteen ilma meesha imaanayo maasha Allah dad isfahmayo walaal ah inaan noqotaan ay idin kula talinaya insha Allah biidnillah hada videogan ka heshaan asxaabtiina la share gareeya khayr sidaas nabadgelyo